waxaan ahay arday ka mid ah ardayda dhigtay iskuulka Imaam Shaafici Primary and Secondary School oo ku yaala dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle State anagoo ah gaarayna 70 arday ayaa inoola diiday imtixaanka dawladda inaan u fariisano maanta oo sabtiya taariikhda ku beegantaa 20ka bisha May waxa caqabad ka qabnaa oo aan adeecaynayna wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabelle oo ina garab taagneen wax noo sameeyeen waxa kale oo qiyaamay hay'adda waxbarashada SAF maamulkana waa laga qaban waay waana la hadli waana la qiimeey waay anaga hadda waxaan diyaar u nahay inaan u fadhiisano imtixaanka dawladda maanta oo sabtiya doon dhaafo waxaan kaloo aan waxa laga qabtayna wasiirka waxbarashada Hirshabelle oo iska jiifa hadda wuxuu joogaa iskuulka Ishaxana ardayda imtixaanka wada fadhiisanayso ugu yaraan waxa fadhiiso 100 arday imtixaanka dawladda maanta fadhiisanayso anaga iskuulka Imaam Shaafici Primary and Secondary School oo maanta anaga madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay arday aan wadanin shahaadada dawladda inuu laga aqbalay jaamacadda waxaan adeecaynaa anigoo ah 12 sano inaan qarash ku soo bixinay waxbarashadani oo nagala qawaayo waxaan madaxweynaha federaalka Soomaaliya inuu wax noo qabto aniga waxa ku soo bixinay 12 sano lacag qarashan soo gelin waqtigaani dib u dhacay waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wax noo qabto aniga qarashan anaga waqti anaga dhacay waxaan rabnaa inaan wax barano oo aan dalkan wax qabano waxaan sidoo kale waxa laga qabto leenahay aniga isku duwan 70 arday ah wasiirka oo waxbarashada Hirshabelle iyo dawladda